runtii maanta waa cusir waa taariikh iyo farxad gaar ah iskuulada dawladda sanadkii u dambeeyay waxyaalaha culayska la saariyay waxa ahayd in tayada waxbarashada kor loo qaado bilicdoodana kor loo qaado si ay ardayda ku jirtaa maskaxaan iyo jirahaan iyo aqoon ahaanba u kobcaan tan markaa waa talaabo ka mid ah talaabooyinkaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa hay'adda UNHCR oo wada shaqayn la leh wasaaradda waxbarashada oo kaashanaysa markaa iyaduna hay'adda kale NRC oo markaa barnaamijka waxbarashada qaxootiga runtii ka shaqaynayay Soomaaliland saa wada ogsoontiin waa dal nabad ah waa dal u furan markaa cid kasta inay ku noolaan karto si gaar ah markaa shuruucda waddanku iyo siyaasadaha waddanku waxay soo dhaweynayaan dadka qaxootiga inay si nabadgelyo halkan ugu noolaadaan inay helaan xuquuqda asaasiga ah ee waxbarashadu ka mid tahay taasaan runtii anigu aan u fududaynay waxaan u mahadnaqayaa markaa maamulaha dugsigan Maxamed Axmed Cali iyo maamulayaasha kale dugsiyada dawladda iyo gudiyada waalidiinta oo runtii iyo ardaydaba oo si wanaagsan u soo dhaweeyay qaxootigii la joogay markaa iskuulada wax ku baranayay una arkay markaa dad la mid ah si gaar ah waxaan jecel halkaan uga mahadnaqo markaa Mrs Sara Khan oo runtii wax badan mashruucan ka qabatay shaqo fara badan markaa Soomaaliland gelisay. Thank you so much Sara for your support. waxaa kaloo jecelnahay markaa UNHCR inay sii kordhiyaan dhaqaalaha iyo taageerada ay siinayaan waxbarashada dardaaranka halkaan uga diray maamulka iskuulkuna waxa weeyaan hantidan maanta linagu wareejiyay waa hanti dawladdu leedahay waana laga xisaabtamayaa idinkuna waxaan doonayaa si gaar ah u ilaalisaan hadday tahay markaa maamulkeeda hadday tahay markaa iyo tayadeeda iyo ilaalinteeda iskuulkan waxa lagu talagalay ugu horreyn ciyaalku iskuulku ku ciyaaraan waxa kale oo furaya markaa dadka xaafaduna inay ku ciyaaraan laakiin nidaamna loo sameeyo dhaqaalana laga soo saaray iskuulka xutara